walaalkeen maanta waa islaam qofkaan ogeyn oo ogaw walaalkeen waa muumin inagoo kale ah diinta anagu haysta walaalenu nahay rabbi subxaanahu wa tacaala oga baqa weji ma aha ilaahay oga baqa subxaanahu tabaaraka wa tacaala maanta wuxuu ku jiraa fii dimmatillah ilaahay seeridiisuu ku jiraa seero bannaankaa joogta ma ku jiro ilaahay seeridiisuu ku jiraa maanta idan ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uu u kasay goob meeshaad u ducayn lahaydeen oo bedelkeed aad oga dhigeen inaad soo dhaweysaan ood u ducaysaan mada halkan kusoo qorqoraysaan ninkaan ogeyn hadda ogaaw qofkaan ogeynna ha ku degdegin bilaahi calaykum qofka muslimka ah laguma degdego ama qofka bini'aadanka laguma degdego salaadiisi waxayaan tukaday laba ragco ka horeeyey laakiin hadda salaadiisi waxayaan tukaday waxaan dareemaya ayaan يعني garan waayay meel ay ka imanayaan waan jeclaystay markaa inaan la wadaago albaabada meel kasta way xiran yihiin neecaw ayaan dareemayaa waxaan dareemayaa fudayd ayaan dareemayaa fahankiyo iyo fududaaday ayaan dareemayaa imika waxbaan doonaya inaan ogaado hore ayaan ka fahmayaa ma garan karayo si ka wanaagsan inaan igu sharaxo ayaan haddana rabaa laakiin kaliya waxaan odhan karaa wax wanaagsan baan dareemayaa kale maalin kasta haddaan tukado san ma ku jiraya wallahi waa nolol macaan weeyaan maanta maasha allah farxada ii tahay walaalow diinta islaamku nasteexa weeyaan wanaag weeyaan aaday u fiican tahay marka walaalow ilaahay khayrkeeda waad aragtay ilaahay ha kuu siyaadiyo hambalyaan ku leeyahay maasha allah ilaahay walaalow annagana garabkaagaa nahay ummadda muslimiinta oo dhanna ilaahay ha wala kaalmeeyo walaalow diinteenna nasteexa weeyaan inaad diinteenna ku adkaato inaad adkaarta badsato inaad salaada masaajidka aad ku xidhnaato yaa walaalow ku farayaa ilaahay waad hanuuntaa ilaahay kuu siyaadiyo walaalow hambalyaan ku leenahay diinta islaamku nasteexa badan weeyaan marka walaalow intaasaan kugu darsanayaa diinta aad iyo aad ay noogu fududahay diinta aaduu ilaah noogu fududeeyey adinkan diinta ha nagu adkaynina hana adkaynina ha nagu adkaynina hana adkaynina ha nagu adkaynina markaan leeyahay culimmadiyaa saan dhahday yaa la dhihi hana adkaynina oo qaadaan cunaa oo salaadii culimmadiyaa saan igu dhahday inta dhahdan salaadana yaa laga tegi salaadaada tuko qaadkaana inuu ilaahay kaa reebo ilaahay bari qamriga Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qamriga Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wala taqrabu salata illa wa antum kusala wala taqrabu salata wa antum sukara sorry wala ha sukara adinkoo waxa waaye adinkoo dhacdhacaaya oo wali waxa waa khamradii idin ku jirto ha u dhawaanina salaada ayada laakiin laguma dhihin khamre hadaad cabtid salaadaada maxaa waaye salaadaada lagama aqbalay yani hadii lagu dhaho taa aniga waxaan arkayaa qofka asaga in masaajidka laga ceerinayo marka khamrada teedu waa dambi gooniya qaadka tiisa waa dambi gooniya taatuuga kiisa waa dambi gooniya ilaa dubuurun yahay magaciisa muxuu ahaa tumashada iyo zinadana waa dambi gooniya marka salaada ayaana kaa reebi doonta ilaahayna waxa waa dambigeena ha dhaafo amiin barakallahu fiik waxyar waxaan rabaa walaalkeyna inaan la hadlo dadkiina aan ku laabto waxyar inaan kula laabtana ma raba waa raalli ahaanaysaan ustaad meeshan ka qaldaman waad iga qabanaysaa insha Allah hamay dhimale sheekhi aayadda quraanka ahayd يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ما شهدوا بهيد ونصح الشيخ عليه حفظه الله ورعاه waxaan rabaa inaan waxyar walaalkay waxaan rabaa inaan dhaho ha ku mashquulin dadku waxay soo qorayaan ma aragtaa dan ha ka gelin qiimahaagaa ka weyn qiimaha diintaadaa ka weyn dan ha ka gelin maxaa kuu soo haray dadka ilaahi dan ha ka gelin dadku waxay soo qorayaan qiimahaaga iyo diintaadaa ka weyn waxaa ii soo haray dadka bulshada la daawanayo war ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala oga baqa hadalkiina iyo ficilkiina ilaahay oga baqa waxaad ku hadlaysaan wax kontaroolan oo ilaahay aad oga baqaysaan ha noqdo
waxaad samaynaysaan wax kontaroolan oo ilaahay uga baqaysaan ha noqdo waa la hadlaa ha u hadlina nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxaa ka sugan bal xadiis Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu warda Anas ibn Malik baa wuxuu yiri wallahi waxaad samaynaysaan buu dhahay innakum la ta'maluna amalan adaqu min a'yunikum adaqu fi a'yunikum min ash-sha'r waxaad samaynaysaan buu dhahay Anas ibn Malik amal waxaad samaynaysaan amal ka yar xabada tinta markaad waxaad arkaysaan tinta xabadeeda wax ka yar baad samaynaysaan buu dhahay waxa isleediin buu dhahay marka amalka uu yar yahay waxa uu micno ma leh markaas wuxuu yiri kunna na'udduha ala ahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wa sallam xilligiisi acmaashan idinka isleedihiin iyo dambiga isleedihiin uu yar yahay xilliga nabiga wuxuu yiri waxaan ku tirin jirnay dunuubta wax halaagto u fiirso dunuubta wax halaagto billahi alaykum dunuubta wax halaagto in la galo wax sahlan ma aha waa lagu burburi hal nagama noolaanayo idan waxaan laga rabaa kelmadaad ku hadlaysid wallahi waa cadaab geen kartaa alaykum asalaam kelmadaad ku hadlaysid way ku cadaab geen kartaa kelmadana aad qorto baad ku fogaan kartaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u gafina diinta ilaahay ha u gafina ummadda ilaahay islaamka ha u gafina degdega naga daaya degdega ilaahayna waa inoo diiday nabigana waa inoo diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh degdeg ma qabta diinta annada qofka ha xukminin qofka ha caayin qofka waxaada ogeyn ha ku sheegin ilaa aad hubsato wallahi waxaad ogaataan hadalka beenta oo lagu hadlo iyo marqaati kaca beenta hadda qofka waxaad soo qoraysid waxaad ku marqaati kacaysaa qofkaasi inuusan islaam ahayn kelimada aad soo qoraysaas waa nabigana sallallahu alayhi wa sallam waa garanaysaa markuu dunuubtii ka warramayay uu soo sheekeeyey asagoo jiifo yuu soo fadhiistaa layidhi nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu soo fadhiistay kelmadda uu sheegi rabo darteed markaas wuxuu yidhi alaa wa qawla zuur wa shahaadata zuur hadalka been abuuradka ah war hadalka been abuuradka wax sahlan ma aha nabiga aad buu ogaa inay wax weyn tahay dambi weyn yahay ilaahay oga baqa ummadda wixii nahu min dusha ka saarina waxaan aad leedihiin waxaan lama huba iyo dadku ku dheleelaya war ma ilaahay baad ka timaadadi ma ilaahay baad ka soo warramaysaa ma risaalaad wadataa oo ilaahay ma ku waxyoonayo qofka qalbigiisa ilaahay baa ku jira waxaad ogaataan nin saxaabadii kamid ahaa saxaabadii kamid ahaa ridwaanullaahi calayhim ba waxaa la yidhi iyadoo dagaal lagu jiro oo muslimiinta iyo gaalada ay dagaalamayaan baa nin gaal oo diinta caayi jiro oo diinta la dagaalami jiray baa nin saxaabiya isku soo aadeen ninkii saxaabiga ninka gaalka uu qabtay seeftuu ka tuuray markuu dil rabuu ninkii gaalka wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah buu yidhi ninkii gaalka markuu laa ilaaha ila allah yidhi wuu dilay ninkii saxaabiga nin gaalkuu dilay nabiga sallallahu alayhi wa sallam baa arrintii ogaaday markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku yidhi war maxaa u dishay markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah waxaan u dilay ninkan gaal buu markii horena ahaa diintuu caayi jiray waad ogeyd haddana laa ilaaha ila allah uu ku fakanayo wuxuu islaa aad ku baxsatid mooyaane diin iyo islaamnimo kama ahayn ninkii saxaabiga ahaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam wallaahi aad buu ola tacajub wuxuu ku yidhi ma adiga qalbigiisa ma adaa jeexay oo ogaaday inuu ku baxsanayay inay ka dhab ahayd xagee tegaysaa saxaabadii baa lagu canaananaye adiga xaggeed u socotaa qof islaam markaad u gafi gaal iska badaa inaad u gaftee qof islaama markaad u gafto xageed u socotaa miyuun ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala aad addoon u ahayn miyaadan qof diinta annada islaamka haysta aad ahayn ilaahay oga baqa subxaanahu wa tacaala wadaadka wiilka walaalkeena ha u gafina maanta waqtigan la joogo wuxuu idinka mudan yahay inaad weliba qof weliba ood ku dagan lahaa oo ku dambaabi lahaa inaad u sheegtaan ha ku dambaabin walaalkeena waa muslim garabkeenna weeye maanta inagu nagu dhex jira waa labadeena garbood yaa lagu dambaabin ilaahay ha loo baryo subxaanahu tabaaraka wa tacaala ha laga warhayo ha lala saaxiibo dhinacyihiisa ha la joogo khayrka ninkii u sheegi kara ha u sheego ninkii kale wixii wanaaga bari kara ha baro ninkii la xidhiiri karo wanaag raba inuu u sheega ha la xidhiiro taasuu maanta nagu leeyahay walaalkeen walaaladeeyow dunuubta beenta iyo sida fudud aad ku gelaysaan iska daaya ilaahay uga baqa walaalkeena maanta sharaf iyo qiimo iyo ducu naga mudan yahay ducada u badiya alla subxaanahu tabaaraka wa tacaala inuu ilaahay qalbigiisa diinta ku sugo ilaa uu rabbi subxaanahu wa tacaala kala kulmo dhammaanteen inuu ilaahay saa naga dhigaan rajaynaynaa waxaan sidoo kale kaga faa'iidaysanayaa makaankan ama meeshan hadda aan joogo walaaladeeyow dhalinyar badan baa iyagana maran habaabsan ma ilaabin iyagana ilaahay waxaan oga baryeennaa walaalkii adigana aamiin u dha insha allahu tacaala ilaahay waxaan oga baryeennaa walaaladeen inuu ilaahay ayagana soo hanuuniyo ilaahay diintooda ha baro diintooda ilaahay qulubtooda ha ku soo rogo diintooda ilaahay markuu geliyana ilaahay ha ku sugo dhammaantood inta naga baadiyowday oo walaalada ilaahay soo hanuuniyo
إلهي هسوها آمين نوري دعي نجا مدين تبارك لما إنه لأن قلوبت حقيقة إلهي بقت قدية قفك قلوبت قد قدية وإلهي سبحانه وتعالى وحين صح نجا مدين مركين أدعي إنه أنضح إله نوسو هنوني ولا الله إله أنت بعد يسوع هنوني أنت هنون سن إله هنونك كسر أو حق كدل بلايده iyo fuxshiga iyo dunuubta yar yar teeda weyn Ilaahay naga badbaadiyo subhanahu wa ta'ala إن شاء muslimiintan الله Ilaahay hamideeyo ummadda آمين muslimiinta Ilaahay hamideeyo waliba khaas ahaan dadka annaga Soomaaliyeed runtii waa kala jajaban yihiin Ilaahay hamideeyo qabaa'ishan iyo balaayada la isku caayay la isku haysta Ilaahay dadka qulubtooda ka bixiyo diin Ilaahay qulubtooda ha geliyo آمين dalkeenni